dhawaana ay ahayd markii xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka Gabiley ay dalbadeen in hanti dhowrka qaranku baaritaan ku sameeyo xarunta wakaalada biyaha magaaladaasi Gabiley. Arintani oo muran ka dhex abuurtay golaha deegaanka Gabiley ayaa waxa maanta kalfadhi degdeg ka yeeshay xildhibaanada golahaasi. Kalfadhigani oo xildhibaanadu sida ay sheegeen ay kaga doodayeen ka xaaladda biyaha magaaladaasi Gabiley oo in badan ku soo noqnoqday golahaasi ayaa markii uu soo ilaaday waxa ay warbaahintu waraysi kula yeeratay baraxadda hore ee dawladda hoose xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka Gabiley. horta kalfadhiga si caadi u socda hawsha maanta aan ku jirnay waxa weeye wax xaalad arintii biyaha ka hadlaynay wali kalfadhigina u socda wax go'aanina kama soo bixin doodii mudanayaasha lagu jira hawshaasina sidii caadiga ahayd oo socota wali wax go'aan oo ka soo baxayna arinta biyaha ma jiro oo dadku meesha u galay waxa lahaaba laga yaabaa mudanayaal golaha deegaanka ka tirsan ba soo jeediyay sida warbaahinta ku haysan wayna suurta gashay in dad soo galo wali annaga xaqayga wax dadkii jawaabo naga soo gaadhayna ma jirto insha Allah waxaan rajaynaynaa wixii halka khaladaad jireen oo dadku sii doono hadii alla yiraahdo su'aal xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka Gabiley oo waxay hore u sheegeen inaanay dawladda hoose ay jirin biyo la wareegtay walina ay shirkadii uu si dadban hoos tagto balaarintaasi ka hor horta sharciga marka hore baan la wareegsanay horta biyaha sharciga baan siinaya oo maanta hadii biyo la doonayo ama biyo go'an meelaha la hoos imanaya horta dawladda hoose bay dadku imanayaan cid weydiinayaan annagana sharciga la siiyay qodobka 12aad 11aad sagaalaad ayaa waxa uu dhigayaa in biyaha ay hoos imanayaan biyuhu shaqadu aan leenahay xildhibaan ahaan aan leenahay golaha deegaanka ay leeyihiin waa biyaha iyo caafimaadka iyo iskuulada hoose dhexe marka ma ahayn waadigida bulshada iyo anagu leenahay waa shaqadeedu hadiiba dawladda hoose Gabiley la wareegto biyaha amba ay saasi kula wareegto maxay idinka qorshaysan qiimaha qaaliga ee magaalada biyaha inaad wax ka dhintaan horta waa la wareegtay beegada horaaba waaba shaqadeedii baaban ku dhigaa biyaha shaqadeedii ku jirta dastuurku na siiyay xeerarka ay siiyeen marka wax la wareegido cusub ma jirtay laakiin anagu baa u dhiibanay shirkadii horena kala deegaan baa u dhiibtay bismillaahir rahmaanir rahiim bal saxaabada sallallahu alayhi wa rahmatullahi wa barakatuh maanta waxa golku kalfadhigu la wuxuu ka hadlayay arinta biyaha waa go'deeno baryahan babuuq iyo wax tagnaa arrimo noocaas biyaha maanta golaha deegaanku waxa uu dalbaday in golaha loo keeno maareeyaha wakaalada biyaha maadaama mas'uul ka yahay su'aalaha laga weydiinaya isaga ayaa ka jawaabi doona isaga ayaa golaha horiman doona wixii ka soo baxay saxaabada markaas geesta kale bulshada ku dhaqan magaalada Gabiley ayaa iyaguna dareenkooda ka bixiyay xaaladda biyaha magaaladaasi iyo maayarka inay dadka u soo daayeen biyaha macaan at least 1 hour ama 2 saacadood si ay kaliyahooda iyo caafimaadkooda u badbaado waxaan ka hadlayaa biyuhu dawladda dhul badan ay gaadhay way jiraan laakiin waxa weeye biyuhu waa dhanaan carruurta iyo dumarka hadalnay waxa milix bay noqdeen biyuhu waa milix biyo macaan waynu helnay biyo macaan hadalnay waa laga bedelo biyo dhanaan baa lagu soo faaday taasoo Gabiley yani muddo ilaa inta biyo la soo geliyo dhan biyaha dhanaan bay xabtaa wax ka hadlayna arkimaysa gobolka oo dhan degan gaar ahaan degmada Gabiley dadka danyarta in wax kaliya ka dhimo waxa weeyaan loo sameeyo qasabado ay ka cabaan oo waliba ay loogu talagalay in bilaash lagu siiyo dadkaas waayo waa dad muwaadiniina oo xaq u leh waana noloshii qofku magaalada Gabiley waxa la arkayaa maanta inay dadka qaarna ay ku meedhaan laba fursado biyaha dadna ay biyo cabaan ay leeyihiin laakiin biyuhu waa laga maarmaan waa noloshii waa inay dadka biyaha wada helaan maamulkan waxaan ku boorinayaa inay inta ka dhiman ay ku daraan waqti lagu jiro iyadoo waqti lagu jiro jiilaala biyo la'aan ay tahay in markaa gobolka wax loo qabto oo biyaha wax laga qabto wixii samsam laga bedelay inay sii jiraan maaha waa in wax ka gedisan yimaada waxa looga baahan yahay maamul ahaan in bilaashna looga dhigo masaajidada iyo goobaha danta guud si kastaba ahaatee sanadadii ugu dambeysay ayaa waxa si weyn magaalada Gabiley looga dareemayaa biyo yaraan iyadoo ay ilaa haddana aanay wax go'aan ka soo saareen xildhibaanada golaha deegaanka Gabiley Sikriye Nuux Ibrahim Somali Cable gobolka Gabiley